soo dhawaada daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahintii Chess Media anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal ayaa barnaamijkeena caawa daadihinaya bal qodobada aynu ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiisha u sarsareeya ayaa waxa ay soo saareen digniin ay uga digayaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan dadka ka qaraabtay baraha bulshada in ay wararka been abuurka qofkii lagu qabto waayahay bal qodobka kale isku taagi doono ninkii daahagaas oo kiin jaamac madaxa ka dhunkaday waayahay sababta ka dambeysay maxay tahay in uu ka dhaco heshiis halka abwaanintii isku hayay showga kiin jaamac qodobada ay qodobo kale isku taagi doonaa barnaamijkan aragtidaada ka dhiibo aynu ku horeynay ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada ammaanka iyo ciidanka booliiska waxa ay go'aan ku soo saareen qofka dambe ee lagu qabto inuu baraha bulshada soo geliyo warar been abuur sidoo kale waxa ay beeniyeen xalay toole war baraha bulshada la soo geliyay oo lagu sheegay in Hargeysa dhexdeeda dad laga dhameeyay dadkii laayana ay yaaceen waxa marxaati madoona waan aniga marxaati ka ahay mise waxyaabaha kale ee dadku diiday himbiigsanayaan waxa marxaati madoona xalay toole in aan ugu yaraan 3 page ku arkay in la yiri hal qof baa Hargeysa lagu dilay oo laga dhameeyay gaar ahaan degmada Axmed Dhagax saaka waxaan ku soo kacay iyadoo la leeyahay waa lababa oo dadka suuqa maraya leeyihiin hadaba waxa weeye dadka baraha bulshada adeegsada digniinta iyo amarka lagu fuliyo ciidanka booliiska ku fuliyeen horta waxaan arkaa arrin sax weeye sababtu tahay aniga laftigeegu xalay koodii habeenimo marka arkay daqiiqadii loo soo dhigayo arrimaha noocaasa waxaan isweydiiyay wardiyahow barnaamijkan degdega ma ka hadashaa oo si wax u jiraan ma baadhaa haddana waxaan sheegay wax hubsiino u baahan in laga hadlo uma baahna imika balaa aruurtiisu waxay noqotay been bay noqotay ciidanka booliiskuna waxay beeniyeen dadka la sheegay in xalay toole Hargeysa lagu laayay inaanay waxba ka jirinba aanana ka hari doonin dadkii wararka been abuurka soo geliyay baraha bulshada meesha hadaba baraha bulshada isku mid maaha meesha laga adeegto horta waa Facebook ugu badnaana wararka been abuurka ay noocan oo kala waxay ku yimaadaan qoraal bay ku yimaadaan Facebook sababtu ay uu yar yahay qof intuu soo fariisto qofta qurbaha iyo meelaha iska joogo qof waalanay inuu naqaano mooyaan qof intuu soo fariisto hadla oo war been abuura ama beena si toosa ugu soo gala uu yiri waxaad arkaysaa professor sare ama nin calaamada akhtarka ay u saaran tahay Facebook oo qoraal soo dhigaya qoraalkaas oo dhow been noqonaya waxa ugu badan la adeegsadana waa qoraalka waxa marka anigu aan ku garab taaganahay ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland in horta baraha bulshada process loo sameeyo ama xad aanay soo dhaafi karin oo wixii ay ka hadlayaan aanay wixii kicin bulsho iyo ka hadlo wixii wax caadi dadka u sheegay waa meeshii laakiin kicinta bulshada waayo warkan aniga Facebook ka arkay annada waxaan keenayaa YouTube iyo Facebook iyo meel walba waxa weeye dadka qaarna waa xaqiiqo raadin warkoodu oo wax ama xaqiiqo ku salaysan bay ka waramaan ama wax u dhow laakiin ay iyaga laftigoodu ka cudur daari karaan oo oran karaan warkan oo ila xogogaal soo tabiyeen ama aan wali xog rasmi ah ka hayn ciidanka booliiska waa ku garab taaganahay wixii waliba aanu anagu garanayno waan u soo gudbinaynaa anagu dacwadooda macaldabe sidna waxa jirta marka dadka xalay toole soo geliyay aan waxaan oran lahaa hadaba laga hawl galo qofkaasi waxa uu galaafan karaa dad kale sababtoo ay arrinka xalay toole muu ahayn arrin sahlan waxaan weeye inta meelood aan baraha bulshada ka arkay ma yaray dadka hadda si degdeg ah loo raadiyo hadduu maqan yahay reportkiisa hal geeyo maxkamad hal lagu xukumo kiiskii uu leeyahay inuu qof waliba wax iska yiraaho ilaahayna ma banayn dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ma banayn sababtoo ay waxa weeye waxyaabaha wax walba ma aha in la yahay laba banayn laakiin waxa weeye wixii xun taa halkaas kaga gudbaya ciidanka booliiskana waa ku garab taaganay wixii aan la qaban karnaa oo la qabanana waayahay sababta abwaan daahagaas kiin jaamac madaxa uga dhunkaday isagoo daratii ku wareysay qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook qoraalkaas oo ku saabsanaa kiin jaamac showga ay Hargeysa ku dhigayso in aan u qabsooni doonin waxa jirtay abwaanadii reer Soomaaliland dhamaantood iyo fanaaniintii inay kiin la koox noqdeen ama ay iyagu ka soo horjeesteen daahagaas
wuxuu waa kulligood iyo keligeey horta iyadoo xalay toole meel baas maraysa ama maanta gelinkii horeba ayaa waxa jirtay rag waa kii tashaday waxa la waryaadhahay car iyo carna waxba tari maysa xal baynu baadi doonaynaa xalkaas oo ah xal nabadgelyo inantaasina ay showgeeda ku qabsato cid ka soo horjoodaana aanay jirin waayahay waxay noqotay horta rag waa kii tashaday arrinta Somaliland maanta dhex taala ee inan yar ku saabsan wixii dastuur iyo sharci ku qabtaan ama meelo kale lagu qabtaa waa meesheeda laakiin wixii arrinta fankiga dhaqanka ku saabsan waa Hargeysa waxay ka mas'uul tahay afka Soomaaliga waxa ku heesoo dhan wax dee arrimo kale lagu qabto mooyaane wax sidiisa loogu diidi karaa ma jiraan qofta ama dhaqan xumadiisa la diido ama maxaan sheegayay in uu waxyaabo dee kale ka hadli doona caadifadaysan ama dee qof dee magaranaysaa aan ahayn fanaan qaran aan ahayn waa loo diidi karaa laakiin waxa weeye kin jaamac oo shalay toole iyada qudheeda waraysi kala duwan laga qaaday aysan ay jirin Somaliland wax dambiyaho ay ka gashay ya dadkan caadifadaysan buraha bulshada joogan waxa weeye calan bay ku watay page ka la leeyahay waxba loo adeegsaday waxba lagu qoraana dib iyadaaba sheegtay waxay tiri miri halka marka kaga imaado daahagaas waxa loogu tagay gurigiisa abwaanjiheeye iyo horta abwaanada way dhaaftay ilaa fanaaniintii waxa weeye Maxamed Saciid Bika qabar Suudaani abwaan Maxamed Cali Shilke maxaa sheegay daahagaas waxaan leeyahay jiheeye abwaanitu tirabeel bay noqotay tirabeel waxa la wariyo ninka ragma kala macaashay hadaynu carni raahno la car waxba keeni maysee waxaanu sameeynaa hadii abwaanitu lagama yaabo inay daahagaas iyo kin jaac si gaar ah isu hayeen ee kuwa soo dhaweynaya kuwa diidan ba is hayeen marka hore kooxahan baraha bulshada ka samaysan kooxahan fankiga suugaanta kuwa soo dhaweynaya kuwa ka horjeeday ba is diidana waxa la ninka guriga lagu tago warniyo ninka asoo ma inta diidanta bisanaga diidanta bal wax noo sheeg waxay noqotay wax laga tanaasulay sababtu tahay waxa weeye dhaqan uma inaa lahayn inaynu hablaha la ficiltano way noqotay daahagaasna xaal iyo boorjisna intii uu siiyay cidii kale ay hayeen ee ku saabsanay dadka fankiga suugaanta ee ay hayeen dhexdoodana waa Israa'iil galiyeen mushkiladda baraha bulshada saa loo wareejinayay labada habeenna waxay ku saabsanayd qoraal yar oo aan badnayn oo soo dhigay bartiisa Facebook waxa marka aan sheegayaa dadku balaayada ama waxyaabaha dadku kicinaya dacarta ku kicinaya way wareejiyaan farbaysaa ugu wareejiyaan waxa khayr kalaba ma wareejiyaan hebel wax wanaagsan sameeyay xitaa ma wareejiyaan waxaan idin sheegay halkan dad soo gaadhay subscribe ta ilaa like share barnaamijka aragtidaada commentiga kaga qayb qaado nabigana ha lagu saleeyo calayhi salaatu wassalaam mowduuc kasto aan soo xirayno halka u dambeysay weynad nabiga ku salidaa balaayada ilaahay inaga duwayay wixii wax buunbuunayay waa salaam ya dhamaantii